السلام عليكم Somali dhammaan isodonka jise suurada kaga dhigaysalaan isodonka jise suurada kaga dhigaysalaan omiday Somali soo hitaysay walbaba ودكتور كومو صوتا kaga dhigaysalaan Sedangania hayo so mari wa kaisa suran ewa masodo we tawada wa habla asitiga ewa masodo we tawada wa habla asitiga odi koda ko hamwe de ko ya de to kena de kayo de na hada kai Ashahaado يقدر صوتوني لدار جنة كوار يقدر جويني يبلاد عندك وقراري ويرى هيا دولي هيا عدوك كدا إلها دكتور وادا حول تذكير كدا حفتي عدو الدكتور المدة كانت حسنة يلي واحد سكساني وقولي يدير بعين نغضي وتركي سعيد التاريخ دورة وهم دور وقت حقيقة الله والديامات بعين نغضي التاريخ التاريخ Ashahaado sidi isarag wada digtoon odalkooda nafta u hura ayaa la doortay dhaha يعلن دوغ نوغن ندين خاتوما خايسكالي
qurka geerin idihaano damalada ka hay saari ka saari ilaawante raaxay darway isayada hawlada oo taariikhda dahabka aragani heedeni ma hayeen ido marka qaatu haysay bandaqi faha Ashahaado على
كاريه اسمه كاس soo gaadhay hadda waxaynu u gudbinaynaa doctor Ashahaado
وكلمتي الله ما بقى هاي وسوي فيديو دورنا السلام عليكم gabdhaha soo abaabulay xafladan iyo martiqaadkan gabdhaha Khaatumo axdin iyo garashaba dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa habluhu waxa weeyaan marka halka la joogo iyo marka gudaha la joogaba halkan waxa lagu tiigsanayo waa dumarka runta marka la sheego dadka gudaha joogana waxa roontigooda soo saara oo qoyska u shaqeeya haddeer inta badan hawl ma qabto waxa qoyska u shaqeeya oo carruurta masruufa waxa weeyaan dumarka marka halkaa waxa ka muuqata inay dumarku dadkabarka inay yihiin Soomaali oo dhan markii la burburay wixii shaqeeyay iyo wixii waxtara iyo waxa reeraha ururiya iyo wixii arrimaha siyaasadda xitaa inkastoo ayna xilalka iyo umaaheen laakiin waxa lagu soconayo iyo mishiinka wax ku soconayaan wixii siyaasadee la wado wixii ururee la wado wixii sabafaree la wado wax walba waxa ka awalmoodka oo lagu tashanayo oo lagu xisaabtamo waxa weeyaan dumar marka meesha kastana waa aynka Khaatumo waxa lagu xisaabtamaya waxa weeyaan oo hormoodka ka yihiin waa dumar oo dhaqaale hadday tahay abaabul hadday tahay gudaha iyo dabaddaba waxa weeyaan dumarka aad iyo aad ay u baatay dumarku meelay joogaanba ragga waxqabadka iyo hawsha aad iyo aad bay uga horeeyaan hadday abaabul tahay iyo hadday dhaqaale tahay iyo hadday gurigii iyo qoyskii iyo hawshii kale u dheer tahayba iyaga ayaa ragga dhan walba kaga horeeya sidaa daraaddeed dumarku waxay bulshada Soomaaliyeed waxay kaga jiraan kaalinta koowaad bay kaga jiraan Khaatumona tayrada ay ku soconayso iyo mishiinka wax saaraya waxa weeyaan waa dumarka ee lagu xisaabtamayo ee lagu tashanayo dumarka weeyaan marka maadaama ay raggii aad moodayka dumarku inay aad uga horeeyaan inaydaan daalin inaydaan hawsha halkaas ragga haddaydaa iyagu dabada haddaydaan wax ka wadin oo abaabulka iyo isu keenista waxa weeyaan haddayna dumarku samaynin waxaa raggu in khayraad iyo meelo kale iyo waxaysay laakiin dumarkii oo hawshii guriga iyo tii qoyska iyo carruurtii waxaasi haysato haddana haddayna iyagu abaabulka samaynin wax la abaabuli karo iyo wax laysu keeni karaa ma jiraan aad iyo aad baan idiin salaamayaa hawshana halkaa ka wada haddaalina waxaad ogaataa waxa lagu xisaabtamayaa inay idinka inay tahay hadday dhaqaalo tahay iyo hadday abaabul tahayba hawsha aynu maanta isu taranka taagnay aynu wadno inaa idinku dhexaadka u tihiin oo hadba sida ay idinku wadaan inay noqonayso ee xagga ragga ayna ahaynin idinku ragga kicinta iyo abaabulkooda iyo iskudubaridkoodaba arrinka lagu xisaabtamaya waa idinka hawsha ayaan laga daalin 4 biloodka iyo wax yar baa wax loo jiran ilaa 5 bilood wax badan baa qabsoomay siyaasadda hadday tahay dowladda gudaha hadday tahay wax badan baa qabsoomay waxa lagu socdo iyo waxa lagu urursan yahay ciidanka la isu keenayo ragga la isu soo ururiyo ilaa la hadal doono qisaas la doono wax walba waxa weeyaan waxa kulli gowri waxa weeyaan dumarka haddayna iyagu hawshaa wadin oo weliba dadka dibadda jooga ayaa arrimaha dhaqaalaha waxa weeyaan dadka xaggooda la soo eegaya waa dadka dibadda jooga arrinta inta loo marti yahay waa idinka qolada gudaha joogta waxa weeye qofku inuu dhinto oo qoriga intuu qaato inuu dhinto laakiin arrinta dhaqaalaha waa haddaan dhaqaale layidhi wax ma socon maayaan cidda looga marti yahay waa idinka hawsha halkaa laga sii wado yaa la daalin 4 bilood iyo 5 bilood iyo waxaasaynu jirnay waxa inoo qabsoomay iyo muddadu waa kala duwan yihiin marka ayaanu odhanaynaa laascarood laascarood ma la qabtay iyo waa 4 bilood wuxuba hawluusan u socdaa waa ogtiin shirkii Istanbul guddiyadii laga sameeyey 4 guddiyo la sameeyey 4 daba Khaatumo jeergaraynaysa 4 oo Soomaali oo dhana intaba Khaatumo jeergaraynaysay waana muddo 4 bilooda intay waxaa guushaa la gaaray marka yaan la daalin yaan la degdayn waxyaabo degdeg ayaan la iska filanin jiddeer baynu maraynaa hawl badan bayna sugaysaa dad waqti badan soo shaqaynayay 20 sano iyo ka badan soo shaqaynayay maamul iyo wuxuu dhisnaayeen dadkaas baynu la tartamaynaa way tahay inaynu soo soconno waqtigeennana maanta soo maray halka marka uu muwaafaqo la helo iyo midnimo la helo wax ka horreeya ma jiraan muwaafaqadii iyo midnimadii maanta ilaahay keenay waa in lagu faraadaygo waa in hawsha halkaa laga wado waa inay ogaataan dumarka oo qoyskii iyo hawshii qoyskaana wax walba ka bilaabmay guriga sidaa guriga hawshu ka bilaabato ayuba hawshii kalena idinku taallaa idinkaa laydinku xisaabtamayaa dadka inaad kixisaan inaad abaabushaan fadhiga inaad ka kixisaan qaadka inaad ka kixisaan
هاوش عندك على اللي كبرتيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أختبر ما فيه وبابا وأنا ما جوزي أبلان أتمنى محسومي أنا بقول يا مكان جالية أيام الدين هذين الأيام ونحسن السؤال الروتين الجواد الكريسيكا ممكن وحصان قبضي بالما سنتين waxaan rajaynayaa in jaaliyadaha kale iyo gudahaba muxuu ahay la isku daydo dhaqanka ayaa ku dheeraaday dumarka halkay kaga jiraan halkan khaatumo waxaan kaliya intaa raacin lahaa beesha halkan iyo khaatumo waxay u soo jeedinayaan mahadnaq iyo buugaabo ku salaysan guulihii ay gaadhay khaatumo intii ay jirtay iyadoo wax badan ay karsan yihiin waxaan intaa ku darayaa oo fursada tan dadka loo sameeyey geesiga ah kaga faa'iidaysanayaa room maalin ama dhisin in khaatumo guulo badan bay gaadhay guulahaasna innagu jaaliyad ahaan waa meeshii ay ka soo qurqameen khaatumowan oo halkana lagu aasaasay marka waxaynu nahay haddaynu jaaliyadda igu keenahay aabbihii iyo hooyadii iyo maskaxdii marka laga tago odayaashii heshiisiisa la odhan jiray haddana jiitanka loo yaqaano waxaynu jaaliyadaha kaga duwannahay waxa weeye khaatumo innaga ayaa balownay jaaliyad ahaan waxaan leeyahay yaana ilaawo halkanka yaana ilaawo hawshii wax badan baa qabsoomay wax badanna way qabsay dadaalkii halkiisa ka socda dadka ugu mahadsan yahay waxaan kaloo mahad u jeedinayaa dad badan baa naftooda ugu horay ilaa in khaatumo oo xusid mudan iyana waan muxuu ahay ugu mahadnaqayaa wixii ilaahay ha u naxariistaan leeyahay guulaha siyaasadeed ee khaatumo gaadheen in la isfahamsiiyo oo la iska socodsiiyo waa muhiim gudaha iyo dibadda intaas waxaan jeclaystay inaan fursada uga faa'iidaysto aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin waqtigii way naga dhamaaday baad moodaa marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkiina way naga